السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي قصود بهذا القناة كنا تحران تكنولوجي فضلا حتى تمرك بدنا صوب قطو سبسكرايب لا بينساد وشوف فيديو كستان سو غلينو حتى ما برنامجكنا wuxuu ku saabsan yahay sideed u bedeli kartaa magaca wireless kaaga amba wifi kaaga hadaba ugu horeyn waxaad tagaysaa Chrome-ka ee tagaysaa kadib xaga ugu sareysa waxaad ku qoraysaa 192.168.1.1 kadib go ayaa tii sambood u kurfanaysaa oo baaraysaa kadib waxa ku soo baxaysa la qoranta username and password username-ka wireless kaga digin aad ku qoraysaa badanana sanaqana waa admin xaga hoose ku qoran tahay password-kana waxaad gelinaysaa password-ka wireless kaga wireless-ka ma waliba gaar ahaan qaybta router-ka imika anigu admin ayaan geliyay kadib extire ku soo baxaysa aad ku dhufanaysaa halkaan ka wada aragno kadib waxaad ku dhufanaysaa xagga ugu sareysa qoran tahay wireless halkaan ka wada arkina wireless aad ku dhufanaysaa kadib halkan waxaan ka wada arkaynaa network name magaca wireless-ka aad ku dhufanaysaa magacii hore ayaad ka baabiinaysaa aad ka masaxaysaa kadib waxaad ku qoraysaa magaca iminka doonaysa inaad ku qorato anu tusaale ahaan waxaan doonayaa ku qorto Axmed ayaan ku qoraya kadib waxaad ku dhufanaysaa ku qoraysaa qoranta save setting halka ugu horeysa ka wada arkino save setting aad ku dhufanaysaa kadib halka ku qorantay continue aad ku dhufanaysaa kadib imka waan ka bedelay magacii waan markaad ka bedesho marka inta dhamaysan waan isbaqtiyaa wireless isbaqtiyay kadib washidaysaa waad baqtinaysaa wireless-ka kadib waxaad gelinaysaa password-kaaga gelinaysaa kadib connect ayaa siinaysaa waa imka un ka bedel magacii marka hore hibaaq ayaa ku qoran imikana ku qoran Axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka faa'iidaysi fiican fadlan dadka heshay like saar subscribe-na